waxaanu maanta booqanay xaafadda laanta hawada oo ah xaafad aad u ballaaran kana mid ah afarta xaafadood ee degmada Galdogob. xaafaddu waxay ku taallaa waqooyiga degmada Galdogob waxaana ku nool qoysas tiradoodu gaarayso 400 ilaa 500 oo qoys. isla markaana waxa ay xaafadani leedahay goobihii waxbarashada, goobihii caafimaadka iyo waliba goobihii ganacsiga. waxaanu isku daynay in aanu hor istaagno goob walba oo ka mid ah goobaha aanu horay u soo sheegnay si aan warbixin uga helno. waxaana inoo suurta gashay in aanu xog faahfaahsan ka helno goobaha caafimaadka iyo waliba goobaha ganacsiga. hase ahaatee aysan inoo suurta gelin in aanu idinla wadaagno warbixinada xarumaha waxbarashada maadaama ay xiran yihiin saameynta cudurka coronavirus awgi. halkani waa MCH-ka ay leedahay xaafadani isla markaasna ay ka socoto daaweynta dhalaanka yaryar iyo waliba hooyooyinka. bismillaah magacayga waa Dr. Nasr Xasan Maxamed oo in-charge ka ah MCH Cawaale ku yaala laanta hawada Galdogob ka tirsan Puntland Soomaaliya. Cawaale wuxuu u shaqeeyaa health center kaas oo kala leh qaybo badan. wuxuu leeyahay qaybta OPD-da oo ka kooban under 5 iyo over 5, qaybta ilmaha 5 sano ka yar iyo dadka 5 sano ka weyn. wuxuu leeyahay qaybta nafaqada oo OTB-ga ah. wuxuu leeyahay qaybta maternity-ga oo lagu qaabilo hooyada uurka leh iyo hooyada markay dhasho kadib iyo dhalmadaba. wuxuu leeyahay talaalka, qaybta talaalka iyo sidoo kale wuxuu leeyahay qaybta hooyada wacyigelinta IWCF-ka. wuxuu leeyahay qaybta farmasiga sidoo kale oo farmasiga oo daawooyinka intii ay noo keentahay safe iyo wasaaradaba aan ku siino bukaanka. shaqaalaha meesha ka shaqeeya waa 7 oo 5 kamid ah yihiin qualified nursing yihiin iyo dhakhtar iyo 2 oo auxiliary ah. marka saas u shaqeynaa si isku xiran waan u shaqeynaa. marka xaafadda oo laanta hawada MCH ahaana waa u daaweynaa, isbitaal ahaana waa u daaweynaa. marka saas u shaqeynaa. hooyooyinka nambarka inta hooyo oo ku dhasha waa adigu bishii waxa waaye hooyo 20 ilaa iyo 15 inta u dhaxaysa waa ku dhasha hooyooyin ah lagu qaabilaa. sidoo kale bukaanka oo imaada qaybta OPD-da waa bukaanka la gedisan adigu waxa imaata 20 ilaa iyo 30 maalintiiba. waxyaabaha aad ka cabanaysan magacayga baahiyaha baahiyaha jira horta space-ka inkastoo oo space-ku nagu yar yahay, inkastoo dhismihiina socdo wax yar baa noo dhiman insha Allah mar dhow xagga u guureynaa hadii Ilaahay idmo. sidoo kale baahiyaha waxa yar sariiraha xagooda baa nagu yar. sariiraha hooyada markay dhasho kaleeto 2 hooyo 3 sariiraha dhalinta iyo sariiraha markii hooyada ku dhalayso iyo kuwa postnatalka markii hooyada dhasho kadib la jiifiyo way nagu yar yihiin kuwaas. sidoo kale qalabka kale caafimaadka sida sariiraha examination lagu sameeyo kale marka u baahan tahay hadaa dhakhtarta inuu examination aan sameeyo examination ka marka ku sameeyay way nagu yar yihiin ayakana. intaas kadib waxaan wareysanay ganacsatada iyo waliba shacabka ku nool xaafadani waxa ayna nooga warbixiyeen kobaca iyo waliba horumarka ka socda xaafadan. sidoo kalena waxa ay noo sheegeen in ay jiraan caqabado badan oo ay kala kulmaan dhinaca maamulka iyaga oo aan helin qoondada iyo waliba mashaariicda ay ku leeyihiin degmada marka loo fiiriyo xaafad ahaan. waxaan joogaa Galdogob laanta hawada, xaafadda laanta hawada. xaafadda waxa ka jira xaafadan waxa la yiraahdaa laanta hawada. waa xaafad camran oo dad badan jooga. waa xaafad waxbarashadii leh, qaybihii agoomaha iyo boodhamadii leh. waxa uu xaafadii qaybihii caafimaadka iyo MCH-dii iyo isbitaallo caalamiga oo chief leh oo dhakhaatiirtii joogto. وحافظ عمران علشان مقالة دان oo qayb oo camrana baahiyaheeda waxaan isleedahay baahiyaheedu ma yara. waxaad ogtahay wadanka xoogaa burbur ba ka jira Soomaaliya dhawaalahan wax qaybta iyo cadaaladdu wadanka ma sinna. magaalada sida ogtahay waxay leedahay soolaro, waxay leedahay layrar, waxay leedahay goobo loogu talagalay ammaanka iyo layrarka ammaanka oo kale ba jira. xaafadan malahan waa laga qadiyay. waxyaalaha looga qadiyana waa xagga maamulka iyo calashaan maamul xumo. Soomaalidu waxyaalaha isku tirso oo magaranaysa ay iska reebto ama aysan isuba waxay soo ogolayn sida solarkii oo kale
gudoomiyaha degmada Galdogob waxaan is leeyahay dhinacaan laanta hawada wuxuu joojiyaa boocbooc oo kale wax soo dhaaf ma laha ilaa 2 jeer 3 jeer magaalada loo sameeyay soolaradii iyo layrkii amniga ma soo gaaro waxaad arkaysaa meel lagu celceliyo 2 jeer iyo 3 jeer laga daba taagay oo la isaga daba geeyay siyadu waa furan yihiin iskuulayda waa xiran yihiin sida ayaanta loo xiray laakiin waa furan yihiin dugsiyaalkii waa furan masaajidii waa lagu tukadaa dad badan baa ku nool ilaa 500 oo qoys waa ku noosha ka badan baa ku nool waliba qoysba soo ma tirin laakiin magaalada aad bay u weyn tahay oo u baaxad weyn tahay ma sha Allah waa meel habaysan oo quruxsan halkan waa xaafadda laanta hawada ee Galdogob waxaan rabnaa halkan kaga faa'iideysto oo kaga hadalno xaafadan runtii hadda ku tilaabsatay horumarka isku tashiga ah iyo marxaladaha soo marnay iyo hadda waxyaalaha ka khaldan oo soo food saaray xaafaddu waa xaafad ballaaran sida arkaysaan runtii oo ay ka jiraan dhammaan adeegyada bulshada sida waxbarashada caafimaadka iyo haddii alla ku rooyahay iyo ganacsiga dhammaantood aad iyo aad marka waxaa ku nool dad aad u badan xaafaddu waa xaafad baaxad weyn dad badan baa ku nool oo runtii wax walba isku jira bulshada qaybaheeda kala duwan nooc walba leh marka waxaan rabaa inaan kliibkaygan kaga faa'iideysto xaafadda waxaa ku nool dad gaaraya ilaa 700 oo qoys 600 oo qoys taqriiban meelahaas gaaraya xaafaddu in muddo ah waxay ku jirtay runtii cadaalad darro ama wax ka tirsi degmada ah ayaalihii horese waxaa isku fuuqsaday oo soo dhici jiray maamulka cusub ee hadda yimid waxyaalaha aanan u baran ama degmadan aan la hore looga baran waxaa ka mid ah bulshadii oo la kala qaybiyey qof jeclaysi cadaalad darro yacni ku salaysan isir ku salaysan ayaa ka mid ah xaafadda sidaa u jeedaanba muuqaalada aad ka aragteen xaafaddu waa aad bay u horumarsan tahay dhammaan baahiyihii asaasiga oo dhan bay leedahay horumarmaan wixii noloshu ku tiirsanayd bay dhan bay leedahay halkan waxaan baaq uga dirayaa dhammaan qurbajoogta iyo dadka daneeya horumarka magaalada Galdogob iyo gaar ahaan xaafadda laanta hawada inay ka qayb qaataan horumarka ka socda iyo maartay dhaqaaqa horumarineed ee ka jira xaafadda laanta hawada in qof walba oo ku abtirsada Galdogob gaar ahaan xaafadda laanta hawada inuu ka shaqeeyo waxaa xaafadan ka dhisan ciidan ka shaqeeya amniga iyo waliba u adeegida bulshada waana kan taliyaha ciidanka oo inooga warbixinaya habka ay u dhisan yihiin ciidankaasi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto aan salaamaya halkan waa Colonel Xuseen Aadan Xirsi oo jooga degmada Galdogob qayb ahaan laanta hawada waxaan ka abuurnay ciidankaas oo loogu talagalay amniga degmada guud ahaan ciidan wax ka qaban karo ummadda Soomaaliyeed dhinac kasta loo baado waa niman yar yar oo loo abuuray nabadgelyo xaafadda amnigeeda waxaan uga shaqeynay habeen iyo maalin waxa ka howlgala ciidankan ururkan la yiraahdo kontonafraad ciidanka gorgor oo habeen iyo maalin u taagan xeran ku leenahay dhinacan xeradaas iyo isku tashi lagu wada dhisay madaxna u yahay islaan dinax gudoomiye uu yahay anna taliyaha ciidankaas aasaasay tababaray qaarna hadda ilaa 70 tababar bay ku jiraan